السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanaysiin waa Leila Ahmed official. channel ka taa ku cusub tahay subscribe ka like share comment qurux badan ka soo bixi. hadaa hore noola joogtan daawashada ay daawanayso waxaan ku leeyahay aad baad oo mahadsan tahay. like badan iyo si share garee like badan la si sida video oo meelba u gaaro ma sha Allah dadkii igu soo biiray mar walba waxaan leeyahay aad baad mahadsantiin. labada maana wax ma soo gelin asxaabta waxaan u soo geli waayay channelkayga ma jecel inuu maana video ka maqnaado insha Allah maalin walba waa soo gelinayaa gabar walaashayaan insha Allah saaciday labada maalin oo wadanka ku cusub marka adduunkan baa wax lagu yahay walaal lagu yahay asxaabta sharafta leh qurbahan waa iska taqaanaa qofka markuu ku cusub yahay waa iska dhibaato badan yahay oo ciyaal wato qaybta saacidaada aan ku maqnaayaan xoog dalka aniga waay marka asxaabta sharafta leh sida tatalku aragteenba war ma dhaafta Leila Ahmed sida tatalku aragteenba waxa waaye xaq hadloo qaaladan aad baan u xaraaqsanahay dadka qaaladan dhahayo hal qof le shan iska dhigooyaan ku dhahay shan qofood shan gay toban aan iska dhigooyaan ku dhahay hal qof le kumadiga intaasoo gmail sameysanayaan ku dhahay marka qofka horta hadduu wax yahay oo karti leeyahay oo asturan yahay oo nadiif yahay oo meel lagu waayo luuq lagaa soo weerar lahayn meel lagaa soo galo mala waynaayo qofka hadduu social media oo magac ku yeeshto horta qaaladan waa gabar fanaanad waa codkar waa gabar maasha Allah ah qof walba ugu jeedaa waxay tahay sadar muuqdo su'aalka dhanaa yiri marka bahasha dhanka iyo waxa loo soo wareejiyay xagga ciyaalka qaaladan xalay xagee ka maqan xagee ka dhiman tahay xagee ma fahanti qaaladan way sheegtay waxay tiraahday gaabnaan lahay gaabadka waa gaabanaha leeyahay caayo wax uma ahan waxaan ahay baa ahay tiri ceebna ma waxay tahay bay tahay marka qaybta waxa loo soo wareejiyay ilmo dhalooga adiga ku sheeg qaalada dhaleedo ya asxaabta waxa la yaabanahay qofka baabaha ugu dhigaayo ya karbaashka kuleelka haysto yaa ku sheeg qaalada dhaleedo ya marka qalada la galayaa qalad waa waxyaalaha qaarkood ilaahay awoodiisa in la galo qalad waaye waxa laga yaabaa hadda aroos cusub waaye wiilkaas ay isqabeen waxa laga yaabaa in awlaadooda iskugu darsaneen ay wiilkan ilaahay wax iskugu daro insha Allah ilaahay wuxuu iskugu darayaa commentiga lagu soo duceeyo qaali ilaahay waxa ugu bariyay wiil iyo gabar intaba wax ka duwan ilaahay ma siiyo wiil iyo gabar inuu ilaahay si hal mar wac ya keen waa joogta abaay ana kale noo soo oy ya lama lee wacanayaan ku dhaaminka buuf nadiif laga dhigaa lamada cunug la iska hayso ya qaali waa is ognaay walaalay ya qurba meesha ugu fiican aad joogtaa Kenya joogtaa koode marka laba kugu duceey laba ya baay hoosh wax ku qabto muwaynaysa laba kugu duceey insha Allah waana dhalaysaa marka dadka qaali jafta ka guraay oo qaali ma dhalin qaali ma dhasho waaye qaali meelba ma gaarin qaali waa ciyaal waa gabar yar weli heerkaas ma gaarin oo la dhaho maba dhalin mana dhasho qofka markuu gaaro 50 ama 45 ama 40 haba la dhahoba qofkaan ma dhasho waaye laakiin waxaan la yaabay qofka hadii Ilaahay iskugu toosiyo nolosho yaro macaan iska galo romansi iyaarko yaro qurxan iska guursatid waa lagu soo daba dhiganaa ku dhaw waa lagu soo daba dhiganaa si kale uma taqaanide ma fahanti asxaabta sharafta leh qaali la soo duceey qaali insha Allah waa dhalay laba dhalaysa ka cabsanin marka insha Allah videogan dadku soo gaaro waxaan ka codsanayaa qaali kaligeed ma ahan gabdhaha aan ciyo wax dhalin oo soo daaho oo macnaha qofka isguursan cabaar ay isku dhalin qalbiga qofka ka dhaawacaya qofka ma dhasho qofkaan isaan halaga daayo صدق هذا اللي واجري صدقين كا واحد هم تقنا ويل كي قبل أو مرة ليسو
wiilkaan ma dhasho gabar wiil kale ku daraya ya marka hadda waxaa la keen dadkii ku aqoonin ama qofkii ku yaqaano ku dhahay qofkaan ma dhasho waay marka asxaabta qof walba oo ilaahay wax siinin oo ciyo ka soo daaho ilaahay waxa siiyo oo soo duceynaya waqtiga lagu jirno waqti ciyaal waqti la iskugu caayo ma ahan xilli waxaa lagu jiraa ilaahay awlaada baar Allah noogu dhigo xilli waxaa lagu jiraa horta ani ahaan leel ahaan qofkii fikirkaasi la qaban hayla soo wadaago xilli oo ciyaalka loo ooy jiro oo loo waala jiray waxay xilligii adduunka fiicnaa ma fahant oo ilmaha baari ahaayeen oo ilmaha maasha Allah ahaayeen hadeer dadkii waxaa ku wada dhacay hami waxaa ku wada dhacay wadan gaal in la wada aado inta badankood Soomaalida waxaa ku wada dhacay ciyaalkii inay soo ogeen waxaa gabdhihii waxaa badankood waxaa ku wada dhacay hami stress ninkii oo u fiicneen ninkii oo macnaha ku xumaado nin kale iska guursanaysa ninkii kale dad ku sii xumaanaya marka ciyaal xilli macnaha oo la dhaho qoftaan ma dhalin iyo qoftaan ma dhashay horta gabdhahan yaaba u baahan maskaxda in laga dagaalamo maskaxda loo saxo oo barbaleenka laga ilaaliyo ciyaalna waa horta waan dhalay alxamdulillah ilaahay idaafo inta haysana Allah siiyo laakiin xilli ciyaal la isku caayam xilli ciyaal la isku la dagaalamo la taagnaba ilaahay qofkii haysanin Allah siiyo marka dadka waqtigii lagu caay jiray waxay ahayd waqti iska masmaan ah hadeer waxa waaye qofka hadda wax isku dhalwaysiin waa iska nasiibsanaysaa oo qof kale iska guursanaysaa ilaahay wuxuu ku siinaya laakiin waqtiga hore waxay ahayd hadduu qofta guursato oo guurka ugu hore ay guursato ay dhalin waxa la jiray qofta ma dhasho waay wax walba waxaan dareemi karaa isleeyahay wax walba waqtiga la sumcinaha bester waaye waa la soo dhaafay hadda waxaan joognaa adduun casri ah wax casri ah waqtiyadii way isbedeleen marka waxaan leeyahay qofka adigoon ogaanin inuu dhalaynin oo cadeynteeda horta ilaahay baa og yaana dambaab ilaahay baa og laakiin iyagoo qofka uusan dhakhtar tagin oo qofka la dhihin khalaas waaye ama gabadho kale waxa wax ku dhashaa minka oo la dhihin minkaada saas waaye ama minkaada waa khalaas ma dhalaa ay sid minkaada qalabkaas iyo qaladkaas haysto asagoo qofka la dhihin in go'aan degdeg laga qaato aniga waa ila qalad arintaas qalad ay la tahay asxaabta sharafta leh ma jecel video inaan igu badiyo war badan aan yiri waxaan ma taraayo marka ha laga dhaafo qaalin ha laga dhaafo qaaliyay wixii saas ku soo dhahayna waa dad jirin Allah caafiyo inta haysanin oo kale oo qaali la mid ahno waxaan ugu rajeenaa insha Allah inuu Ilaahay siiyo ayagoo faraxsan ay soo qoraa komentida quruxda badan asxaabta sharafta leh intaasaan video nagu soo gabagabeynaya video inshallah waa soo socdaan waxaan ku dhahay gambaleelka u furo subscribe saar like badan saar komentida quruxda badan ku raaxaysanay soo dir inshallah komentida mara video ka soo sameynaya su'aalo waxa jeceshay isoo weydii waxaan ku dhahay soo galgalaan ku dhahay bye bye